senatarada iyo xildhibaanada walaalehen reer Galmudug oo maantay anagoo ah wafti reer Puntland oo wasiirro iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kaleba ka kooban aanu shir kula qaadanay Hotel Global koonfurta Gaalkacyo ee Galmudug runtii shirkaas oo aan uga hadalay arrimo aad muhiim ugu ah guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan labada dawladood Galmudug iyo Puntland ee Soomaaliyeed khaasatanna magaalada Gaalkacyo arrimaheedana aanu ka hadalay oo ay labada maamul iyo dadka walaalahaaba ay daris ka yihiin waxaanu si gaar ah halkaan maantay uga wada hadalay oo runtii dhanka Galmudugna saynu wada ognahay walaalkeen wasiir Fiqi oo wasiirka amniga iyo mas'uuliyiin kaleba ay joogeen aanu si gaar uga hadalay arrinta amniga sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka argixisada oo dhibaato xoog leh runtii ku haysa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaanna gobolkan ay labada maamul daris ka yihiin dhibaatooyin ay ka geystaan oo hadda kuwii ugu dambeeyay ay ka mid ahayd qaraxii ay ku fuliyeen oo ay ku dileen walaalkeen gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland oo shalay tacsidiisii ama munaasabadii tacsida la isugu wada yimid waxaanu ka hadalay sidii dadka reer Puntland iyo Galmudug ee walaalaha la isugu soo dhaweyn lahaa horey loogu sii wadi lahaa dadaalkii muddada soo socday ee nabadeynta la isugu xiri lahaa bulshada oo la isugu soo dhaweyn lahaa waxaan ka hadalay sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen dhinaca maxaa la yiraahdaa hay'adaha dawliga iyo dhismahooda waxaan rajaynaynaa haddii lahayd arrimahaas inay horey u sii socdaan waxa la wixii ku xeeran xoojinta amniga iskaashiga dhinaca la dagaalanka argixisada iyo iskaashiga iyo isku xirka nabadda iyo adkeynta xiriirka bulshadana waxa la wixii kale ku xeeran oo ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto arrimaha kale ku xeeranna inaan insha Allah ka wada shaqeyno waxaan rajaynaynaa arrimahaas inay shaqo isu bedelaan haddii lahaydmo aanu halkaan maanta kaga wada hadalay ayna dadku dareemaan sida ay Galmudug iyo Puntland haddii shalay cadow ka faa'iideysan jiray oo madaxa isu gelin jiray oo Gaalkacyo iyo inta ku xeeran ay noqon jireen meel dagaal in maanta la arko mas'uuliyiinteedina inay garbaha haystaan ilaa madaxweynayaal ilaa wasiirro ilaa gumartoorayaal ilaa meero ilaa iyo bulshadii ay garbaha haystay odayaashii ismadii haddii lahaydna laga shaqeyn doono sidii deegaankan iyo labada maamul deegaankoodana ay u noqon lahayd meel nabada horumarsan labada maamulna ayagoo garbaha haystay ay qayb uga qaadan lahaayeen Soomaaliya inteeda kalena sidii cadowga looga dulqaadi lahaa dawladnimadeedana looga dhammaan wafdiga ballaaran ee wasiirka arrimaha gudaha dawladda Puntland uu hogaaminayo ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo wasiirka haweenka iyo wasiirka waxbarashada wasiirka waxbarashada iyo xildhibaano baarlamaanka golaha wakiilada Puntland ka tirsan ayaan uga mahadcelinaynaa booqashadoodii maanta ay ugu yimaadeen oo runtii ahayd kulan shaqo oo ballaaran oo arrimaha wasiirku uu ka hadlo dhan aan uga wada hadalnay xooggan aan ku saarnay in dadka halkaan degan ay yihiin dad walaalo ah darisa Soomaali ah hogaankii Soomaaliya iyo maaragtay taariikh wanaagsan halgankii Soomaaliyeed ee xurriyadda lagu keenayna ku lahaa dawlad dhalinta dambana xilliyadii dagaalada ka dambeeyana asaas xooggan u ahaa marka in magaaladan oo noqotay maalmahan dambe magaalo la daris ah qaraxyo iyo dilal qorsheysan iyo dagaalo daba jooga kuwaas laakiin magacyo kale loo bixinayay inaan sidii aan isaga kaashan lahayn arrintaas oo amniga deegaankan iyo deegaamada ku xeeran magaaladan iyo deegaanada ku xeeran aan si wanaagsan oo wada jira oo hal far ah aan uga howlgeli lahayn isagana dhex bixin lahayn dadka fidnada ka dhex wada dadka walaalaha ee halkaan wada degan iyo kooxaha argagixisada ee biyaha cakiran ka dhex ugaarsada dadkana argagixiya dhibaatada badanna u geysta waxaan ka tacsiyeynaynaa mar kale dhibaatooyinkii tirada badnaa oo halkaan ay ka geysteen oo ugu dambeeyay dilkii gudoomiyaha waxay Puntland Galmudug dhankeeda ballan qaaday in wada shaqeyn dhammaystiran oo dhanka amniga ah aan wada yeelano oo heerarka kala duwan leh dawladda Puntland
waxaan sidoo kale xoojinaynaa iskaashiga dhinacyada kala duwan leh oo amnigu hadduu hagaago noloshii bini aadamka iyo noloshii dadka halkan way hagaagaysaa, ganacsigii baa bullaalaya, dhaqaalihii baa kor u kacaya, yacni waxaa kor u kacaya magaaladan oo ahayd xudunta ganacsiga Soomaaliya ayaa soo noqonaysa. marka waxaan runtii halkan ka muuqata in bog cusub oo walaaltinimo iyo wada shaqayn ah labadan dawladood oo dariska ah ay wada yeeshaan oo walaalaha ah, in maaragtay dambiiluhu uusan asagoo reera ku dhex jirin meelna ku dhex gaban ama asagoo koox maaragtay argagixisa qof gabaad siiyey aan lagu dayn waa hebel oo ka tirsan deegaanka alla daayo si wada jir ah oo xoogan in looga falgalo looga howlgalo. dhinacyada kalena oo wasiirku uu xusay oo ah dawladdan Puntland mudday jirtay, dawladdeennuna curdun weeye, in iskaashi dhanka isweydaarsiga khibradda iyo waayo aragnimada aan la yeelano hay-adaha kala duwan ee dawladda Puntland oo baarlamaan leh oo hay-ada fulineed leh oo maaragtay sida dastuurka Soomaaliya uu qorayo iskaashigii loo baahnaa in dhankaas aan u bedelno dhammaan hawlaheena. marka waa mar kale waxaan leeyahay wasiirada halkan yimid way mahadsan yihiin, madax odayaasha ay argagixinayaan ka ilaalinaya oo ganacsigooda ay baadda ka qaadaan ka badbaadinaya inaan dadkaas nahay inay ogaadaan. waana mahadsantihiin. wafdigana waxaan u rajaynayaa joogid iyo safar wacan inta baxaysa. annaguna insha Allah maalmahan magaaladan ayaan dhinacaan ayaan shaqada ka haynay waana sii wadaynaa.